saalixiintii buu ka mid ahay baa marka waxaa la weydiiyey ilaahay baan baryanaa mar walba ilaahay baan baryanaaye mana nala ajiibaya maxaa u wacan maxay tahay sababta ima hadda markaa u fiirsato waayadii hore markii oo dugsiyada qur-aanka dhigi jirnay carrada roob la-aan ka dhacdo ilmaha dugsiga unbaa loox madaxa loo saari jaldhigi jira soo wareega dugsiga intaysan imaaninna roobkii waa imaan jiray sidoo kale markii qof imaada walaal faatixada noo maro faatixada maro barakadii iyo wax walbaba waa la arki jiray hadeertaana sidii oo kale weeyaanoo wixii dhanba way guureen marka waxaa la yidhi waaba duceysanaynaay maxaa dhaca baa isxaaqo markaasu wuxuu yihi 10 arrin baa u sabab ah caraftum allaha falam ta'duu xaqahu ilaahay baad garateen xaqiisana maadin gudanin ilaahay baanu jecelnahay oo dalogna caabudaynaa baa leenahay waxyaaboo naga xarimayne waxayna u noqota shaqo wuxuu naa xalaaltinimeena amray oo nagu waajib yeelane waa nagu cuslaatay xaqi ilaahay ma aanan gudanin taas marka wuxuu yidhi idin gudanayna xaqi ilaahay baa u wacan bay in ducadina la aqbali waayo waa midda koowaad tan labaad wuxuu yidhi zacamtum waxaa sheeganaysaan annakum tuxibuuna rasuula allah inaad rasuulka ilaahay jeceshihiin wa taraktum sunnatah sunnadiisiina waa ka tagteen bal sunooyinkii sunada nabiga calayhi salaam kuwana waxaa nidhi waa wax yar iska caadiya lug bidix iyo midig loo kala hormariyay iyo waxaas wax weyn ma aha qaarna waaba isaga hajirnaba dabeetana hadhowtin waxaan leenaha marka nebigii baan jecelnaha calayhi salaatu wasalaam maha saas jecelka nabiga alayhi salatu wasalaam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii buu yidhi ilahi subxana wa tacaala jecelka ilahi wax lagu gaarayay waa nebiga alay sl slam la raaco qof kastoo nabiga calay slam sunnadiisa weyneeye ee ku dhaqmo ee madax u saarantee marnaba aa ka tegin mideeda yar iyo mideeda weyn qofkaasi nabiga wuxuu alayh salatu salam waa jecel yahay imaa idinka waxaa sheegateen inaad jeceshiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wa taraktum sunnata sunnadiisiina waa ka tagteen tan saddexaad wuxuu yihi qara'tum lqur'aana qur-aankii baad akriseen falam tacmaluu bihi mana adinku camal falin yaa ayuha aladiina aamanu inama alkhamru khamradii iyo walmaysiri waana laga xarimay sooma wixii waa ku jirnaa walaa taqrabu zinaa zinadii ha u dhawaanina haddana de allah mustacaan wax walbo noo dhaweynay baa meel walba isaga jirnaa waa dhex yacayna ilahina subxaana ma dhihin zinaha gelnina waxaa leey walaa taqrabu zinaa zinada ha u dhawaanina way ka xeel dheertaa hawsha waxaasoo dhanna marka qur-aankii waan akrinaynaa camalfalkii iyo wixii aan ku camalfal lahayna ma jirto taasna wuxuu yidhi waxay ka mid taha waxyaabahan ducadiina loo aqbalaynin tan afraad wuxuu yidhi nacamtii ilaahay baad iska cunaysaan mana shukrigeedana ma godanaysaan o ilahay uma shukrinaysaan wax yaroo maanta dhib yar markuuna soo gaara waa cabaadeena haddii farajar ilaahayna siiyana maanta haddaysan hay-adaan caalamiga jirinba waa baabi'i lahan iyo ilahay keyrkiisa maanta dhan loo shukrinaya dhaqan bay noo noqota marka nimcadiin ilaahay baana siinayo keyrkiisna u shukrinayna saasna ma aha shukrigana waa ficil iyo qolba inaad dhahdo weeyaan waxaad tiraahdeen buu yidhi ana shaydaana caduwun lana shaydaanka cadow waa midii shanaade qultum waxaa dhahdeen ana shaydaana caduwun lana shaydaanka waa cadowgeenna baa dhahdeen walam tukhaalifuu mana adin khilaafin wax walba oo shaydaan raalli ka yahayna waa saga camal falayna dadkii baan amreynaa meelihii baan yaacinaynaa garab baan u noqonaynaa hadhowtiin waxaan leenahay shaydaan baa hadda alla ku ron yahay cadowgeenna wey falaa taluumuunii waluumuu anfusakum waadhuna leeyahy shaydaankiina cadow baa noo yaaleediin welina mana khilaafaysaan qultum ana aljannata xaqun walam tacmaluu lahaa waxaad tiraahdeen jannada xaq weeye mana u shaqaysanaysaan jannada marka qof ma jiro camalkiisa jannada ku gelaya waxaa lagu gelaya jannada waa maxay fadliga ilahay baa lagu gelaya jannada fadliga ilahay baa lagu gelayaa laakiin si walboo loo kala camal badanya baa loo kala kor sareeyaa masalada waa labo jannada maxaa lagu gelayaa fadli ilaahi subxaanahu watacaala laakiin qofka ka camal badanya ka camalkiisa khaalis oo ka yahayne oo lilaahi subxaana watacaalane wuu kasii saramarayaa oo ka koreeyaa qultum ana naara xaqu naartiina waxaa dhahdeen waa xaq walam tahrabuu minha mana ka carareysaan naartii oo daalaba kuu roon yahay dhimbil ka mida haddii adduunka la keena dhinacba u kala baxaysaba oo kuleelkeeda qof ahlu naar ah oo dabku haddii adduunkan la keeno ee wax dab inta la shido ee la holciyo la dhex jiifiyo qofkaas hurdoo la dhacaya raaxa darteed wuxuu arkay markii loo fiiriyo
dabkan waxay la tahay raaxay la tahay. marka naartii noocaas eeda kale naartii saas u kuleed baad leedihiin waa xaq, haddana mana ka fogaaneysaan oo ka carari maysaan. wax kastoo idiin dhaweynayana waa sameyneysaan, wax kastoo idinka fogeynayana ma sameyneysaan. waayo naarta waxa kaa fogeynaya waa daacada, waxa kugu dhaweynaya ayada deris kaaga dhigan waa macsida. ilaah naga badbaada anaga muslimiinta. qultum ana almowta xaqu walam tastaciduu lahu, waxaa dhahdeen geeridii waa xaq mana u diyaar garoobeysaan. waayo godkan iyo qabrigan diyaar garoob bay rabaan, acmaal fara badan bay rabaan, rijaal fara badan baa adduunkan jirtay. adigana da alla ku roon yahay camalkeeni aad ba u yar yahay, wax badan baana looga baahan yahay. camalkeena kow inaan daahirno, wax kastoo naga jari kara sida xanta iyo namiimyada iyo waxaasoo dhan ah inaanu iska ilaalino weeyaan. waayo qofkaad xamanay sidoo kale ee aad ama dulmisay maalinta qiyaamo wax ugu yaroo ku qancaya waxaa weeye 70 camal oo farad ah oo lagaa aqbalay oo samaysay baa ninkaas ka yar maka aqbalay. soo arrin la yaab lama awla camalkeena yaray haddana wixii sii nuqsaaminayna ee aad u sii badan yihiin. marka wuxuu yidhi geeridii baad dhahdeen xaq waaye mana u diyaar garoobeysaan. intabahtum min annoomi, markaad hurdada kasoo toostaanne fashtaqaltum bicuyuubi nnaas, cuyuubaad ceebaha dadkaad ku mashquulsheen. wanasiitum cuyuubakum, idinka ceebahaynina waa ilowdeen. oo markuu waaga baryaba maxaa la yiri iyo fadeexadda maxay tahay iyo sirtan waa tanaa iyo ceebta waa kan iyo qof la ceebtiisa saan loo raadinayo, adigana ceebtaadina war isku maysid. adaa wada ceeb socoto markaasaad ceeb dadka la raadinaysaa. adigaa ceeb socotaa, dadkan la ceebahoodii baa raadinaysaa. marka waaga idiin baryane waxaad ku dhaqaaqdaan bu inaad baartaan dadka kale ceebahooda, idinkana ceebtiini waad ilowdeen. dafantum mowtaakum, dadkiini dhintay baad duugteen, quburtii baad geyseen waa soo duugteen. walam tactabiruu bihim, mana adinku cibro qaadanin. kii shalay inta kale joogabaa maanta qabriga loo sii wadaa, adigiibaa sii wadid. maantana ad hebel aaw waa geeriyood, hebel aaw waa dhintay, hebel aaw waxaas dhan maantana maqlaysaan. dadkiibaa qabriyada la geenaya, mana ka camal falaysaan. 10kaas arrin bay u wacan bu yidhi inaan lidinka aqbalin. idan marka waxyaabaha la rabo marka in qofka oo haddii uu rabo mustajaabu dacw inuu noqdo ducadiisa la aqbalo, waa inuu calooshiisa daahiraha oo xaaraan dhan ka ilaaliyaa. taas baa lama huraan ah. hada billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.